xayeysiinta ay shirkaduhu ku xayeysiisanayaan ayaa wax lagu kala qaadanaya adigana wax lagu siinaya su'aasha isweydiintana waxay tahay marka waxan lagu xayeysiinayo wax ku helayso muxuu yahay khamra lagu xayeysiinaya naaga qaawan baa lagu xayeysiinaya bangiyo riba baa isku xayeysiinaya waxyaalo xaraam ah lagu xayeysiinaya adigana tiibaad wax ku qaadanaysa sidaas daraadeed waa lacag lagu helay manfaco muharrama waxa lacag lagu helay waxyaalo xaraam ah oo la xayeysiinayo oo umada loo gudbinayo oo maraya page-kaaga maraya sidaas daraadeed lacagaha sida lagu helo waa xaraam bal waxa xaraam ah inaad page-kaaga u ogolaato in xayeysiinta loo furo ama wax ku qaado ama ha ku qaadan wixii isagu qasab ku soo gala meesheeda way laakiin intaad ka xidhi karto inaad ka xidho waa laazim waay sababtu waxa weeye wixii page-kaaga soo gala oo xumaan ah oo sharciyada ku khaldan in alla inta page-kaaga ku jirto dhan buu wada gaaraya fasaadkaasi inuu saa u faafana adiga qayb ka ah haddaad qayb ka tahay haddana inaad xoolo ku sii qaadatana waa xaraam arrintaasi waxa weeye dadka ka shaqeeya waxa nasiib xumo ah dad badan oo wadaada baa ka shaqeeya dad far badan oo dadka ahlu diinka baa ka shaqeeya oo beejajka intay furtaan xoolo ku urursada waa ajaayib waxa ay xoolaha ku qaadanayaan waa waxaan ka hadlayno wax bilaash la isku siiyo ma jiro wax la isku sadaqaystana ma jiro meeshu meel sadaqa ma ah meel ihsaanna ma ah meesha waxba la isqaabsanaya waxaan lagu siinayo wax weeyaan waa adeeg aad qabatayna waa waxan xumaanta ee aad faafisay iyo xayeysiintan aad faafisay baa wax lagu siinaya ayadana xaaraan inay tahay shaki kuma jiro oo billahi tawfiiq